baahsan ee ku habsaday dalkeenna isla markaana soo noqnoqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya sida aad la socotaan wuxuu mar hore magacaabay ergey gaar ah la tacaalida arrimahaas si uu dhiiri geliyo isla markaana uu kor u qaado wacyiga caalamka iyo kan Soomaaliyeed isla markaana uu u dareensiiyo baahida inta ay leeg tahay iyo say laga maarmaanka u tahay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed waxaa markii ugu horeysay la magacaabay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada si mustaqbalka looga hortago inay dhacdo musiibo sida abaaraha iyo waxa la midka ah caawa oo ay taariikhdu tahay 16 bishii 8 2022 waxaan gudoomiyey shir aan caadi ahayn oo aan isugu yeeray golaha wasiirada si looga howlgalo la tacaalida abaaraha waxaana la go'aamiyey arrimaha soo socda kow waxaa la ansixiyey dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed laba waxaa la ansixiyey maamulkii hay-addaas hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka waa hay-ad sharci ah oo u xil saaran fulinta gurmadka abaaraha saddex waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiiro xukuumadda ka tirsan culimada Soomaaliyeed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka guddigaas waxay u xil saaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta